Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta u socdaalaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Waa xilli ay maamuladu u diyaar garoobayaan inay toos u guda galaan doorashada golaha shacabka. Galmudug waxay ku jirtaa dhowr maamul oo la filayo inay ugu dambeyn 20ka bishan bilaabaan doorashada golaha shacabka. Ra'iisul Wasaare Rooble iyo wafdigiisa ayaa joogi doona magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada Galmudug ilaa 3 cisho. safarka Rooble ee Dhuusamareeb wuxuu bilow u yahay safar uu rabo inuu ku maro dhammaan maamul goboleedyada dalka inta ay socoto doorashada golaha shacabka. safaradu waa kala ujeedo. safarka Dhuusamareeb ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu daaran yahay 3 arrimood oo dhammaan muhiim u ah dalka iyo deegaanada Galmudug. midda koowaad waa doorashada golaha shacabka. Galmudug waxay dhawaan soo afjartay doorashadii aqalka sare. waxay hadda isu diyaarinaysaa midii golaha shacabka. Rooble waxa uu doonayaa inuu markhaati ka noqdo Galmudug oo lagu dooranayo xubno ka mid ah golaha shacabka. xubno ka mid ah madaxtooyada Galmudug ayaa xaqiijiyey in Ra'iisul Wasaare Rooble dalbaday in ilaa 5 kursi la doorto inta uu ku sugan yahay deegaanada Galmudug. hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo aan is arag tan iyo markii ay Qoorqoor u suurtoobi weysay inuu xalliyo xiisadii farmaajadii Rooble ayaa maanta dib isu qaabili doona iyagoo maalmaha uu Rooble joogo Galmudugna isla gorfayn doona geediga doorashada iyo isbeddelka la naawilayo intaba. ujeedka labaad ee safarka Ra'iisul Wasaare Rooble waa samafal. dhawaan Galmudug waxaa ka dhacay dagaalo ay dad badani ku dhinteen kuwa badanna ku barakaceen. maamulka Galmudug waxa uu dalbaday gurmad degdeg ah. guddi ayaa arrintaasi loo saaray. dhinacyada ay kaalmada ka dalbadeen waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Rooble waxaa la sheegay inuu wado daawo iyo agab kale oo loogu talagalay dadka deegaanka ku barakacay. waxaa macquul ah inuu booqdo Guriceel halkaas oo ay dhawaan ku dirireen maamulka Galmudug iyo kooxda Ahlusunna. dadka deegaanka ayuu rabaa Ra'iisul Wasaaruhu inuu soo xaal waraysto iyo inuu gaarsiiyo gargaar ay ugu tala gashay dowladda federaalka ah ayuu yiri mid ka mid ah howlwadannada xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. qodobka saddexaad ee socdaalka Ra'iisul Wasaare Rooble ee Dhuusamareeb waa ka qayb qaadashada xalka. sida ay dadku badi la socdaan kooxda Ahlusunna waxay weli carcar u tahay dagaal kale oo ka dhaca deegaanada Galmudug. waxay ciidan ku aruurinayaan deegaanka Bohol dhawaanna waxaa la sheegay inay qaybiyeen hub iyo mushaar. saraakiil deegaanka ah oo loo diray inay wadahadal la soo furaan ayaan kala soo laaban natiijo wax ku ool ah. hogaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud waxa uu dhawaan sheegay in haddii ay Galmudug diido sida ay wax u rabaan oo aan lala hadlin inay dowladnimadooda gaarka sii wadan doonaan ayna iska celin doonaan ciddii ka hor timaada. fariintaas waxaa lagu tilmaamay dhiilo ogeysiiskeeda wadata. Ra'iisul Wasaare Rooble inta uu joogo Galmudug waxaa la filayaa inuu isku dayo inuu xalka qayb ka noqdo oo uu abuuro jawi ay Galmudug kaga badbaadi karto inay mar kale dagaalo ka dhacaan. dagaalo kale oo ka dhaca Galmudug ayaa si weyn u saameyn kara shaqada doorashada. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble markii uu safarkan ka soo laabto waxaa la xaqiijiyey inuu aadi doono Hirshabelle, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland si uu u xaqiijiyo inay doorashadu noqoto mid daah furan oo aan lagu tagrifalin tartamayaasha. safarkan waa mid ka mid ah safarada lagu muujinayo cadaadiska doorashada. wakiilada caalamiga ah ee taageeraya doorashada Soomaaliya ayaa Ra'iisul Wasaaraha ku bogaadiyey sida ay uga go'an tahay in doorasho looga gudbo xaaladda adag ee uu dalku ku jiro. maxay kula tahay adiga?